dadka Soomaaliyeed markii ay gaaraan goobaha barakeysan ee waddanka Sacuudi Arabiya ayaa ujeedkooda ugu muhiimsan waxa uu yahay in ay si gaar ah u tagaan xarameynka sida magaalooyinka Makka iyo Madiina, meelahaasoo raadadka Islaamkana ay aad ugu badan yihiin. intooda badanna waxa ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed in la horkaco loona hoggaansho sidii ay u soo ziyaaran lahaayeen isla markaana ay u soo marmari lahaayeen dhammaan goobihii taariikhiga ahaa ee ay ku barteen diinteena Islaamka iyo sunnihii nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. sida qaarul xira caraf waana faa'iidada ay leedahay ujeedkii ay u hindiseen maamulka iyo howlwadeennada shirkadahani sidii ay dadka ugu bixi lahaayeen koox-kooxa, maadaama shakhsi haddii uu qofka u baxo waxaa caqabad ku noqonaysaa in uu helo cid indha u noqota sidii uu u soo marin lahaa cagta dhammaan goobihii taariikhiga ahaa amaba diinteena Islaamka ku weynaa. hase yeeshee si aysan taasi u dhicin loogana baaqsado loona qanciyo dhammaan macaamiisha ku xiran shirkadaha xajka cumrada ee Kaafi Travel Agency iyo Nugaal Travel Agency ayay madaxdu waxa ay bishiiba mar koox u qaadaan si ay u soo marsiyaan dhammaan goobaha barakeysan. halkan hadda waa caraf horta inta aan joogno waa caraf la meesha gacanta soo laakiin waa caraf waxa ها لكن مركب بورت الجبل الرحمة قلت كويس كيلو ترى كمان لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ميل مشتاقي عرفه اي جبل الرحمة وكذا يقولوا حكي والله حاجة هذا قاعد يدوي لنا تاني مشتاقي الكاس قبله عرفه haddaba shirkadaha Kaafi Travel Hajj iyo Umrah iyo Nugaal Travel Hajj wa Umrah ayaa u fududeeyay muctamiriinta inay booqdaan goobaha barakeysan iyo kuwa taariikhiga ah ee Makka sida mashaacirta Carafa, Mina, Musdalifa, dhagax tuurka, qaaru xira iyo meelo kale oo badan. haddaba culimadii ka socday shirkadaha ayaa waxaa ka mid ah Sheekh Cabdifitaax oo u qaabilsan shirkadaha Kaafi iyo Nugaal qaybta xajka iyo cumrada. maanta taariikhdu ay tahay soddonkii bishii sagaalaad September waxaan joognaa waxa weeye Jabal Rahma ama Jabal Caraf sida loo yaqaano. halka aynu taaganahay waa halka Nabi sallallahu alayhi wasallam uu waqaftu hahona wa Carafa kullaha mawqif. halkan ayaan istaagay Carafa kulligeeda dhanna waa mawqif weeye. marka buurtaan waxa weeye buurtaas waxa weeye taariikhdaas leh waa amaakinta barakeysan ee maxaan ku yiraahdaa ayay ka mid tahay oo dadka muctamiriinta iyo zaa'iriinta iyo maxaan ku yiraahdaa aan keeno iyo ujeeda. marka haddana waxa uu keenay si u bartaan buurta waxaa loo yimi cibra oo taariikh oo diraasa u nimi ma aha inaynu magaranaysaa waxa weeye masaxano ma aha magaranaysaa waxa qofka uu magaciisa ku qoro inuu dhunkado inuu dhagax ka qaato inuu ciid ka qaato waxyaabahaas oo dhan waa akhbaar iyo magaranaysaa khaladaadka dhaca dadka ujeeda muctamiriinta ah. marka sidaa darteed waxaa magaranaysaa aan ku baraarujinayaa dadka muctamiriinta ah inay keliya magaranaysaa waxa weeye cibrada iyo taariikhda iyo diraasadaas ay ka qaataan. وانا محاول هذا هل كان النبي عليه الصلاه والسلام واتوا لها افضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وافضل دعاء يوم عرفه. marka maanta Carafa inaga ma joogin hadda laakiin waxa weeye fadaaisha ku soo aroortay ay ka mid tahay maxaa hadda aynu taaganahay. fiiro gaar ah shirkadaha xajka cumrada Kaafi iyo Nugaal ayaa waxa ay wadaan diiwaangelinta cumrada fasaxa bisha Janaayo 2025 oo ah cumrada ugu jaban sanadka oo dhan. haddaba ka faa'iideyso haddii aad dareynayso fadlan la xiriir shirkadaha Kaafi iyo Nugaal. Maxamed Axmed Yuulka TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Muqdisho.